Geedkani waa geedka loo yaqaano gabbal-dayaha, waxaana lagu beertaa guryaha hortooda iyo meelaha loogu talagalay in lagu dalxiiso. Balse geedkan oo ay Soomaalida qaarkood magacyo kale u yaqaanaan ayaa waayadan dambe tan iyo 2018 waxaa soo shaac baxday in uu noqday geedka laga sameeyo saliidaha kala duwan ee loo adeegsado cunto karista iyo heerbalka. Haddaba dhakhaatiirta adduunku ilaa hadda wax jawaab ah kama odhan geedkan iyo saliidahan ay dadku isticmaalaan, balse dhinaca Soomaalida iyo waddanka Kenya ayaa waxaa aad loogu beertaa geedkan ayaa noqday geed ganacsiyeed ay ku bedeli karaan dadka Kenya qaadkii laga joojiyey ganacsigiisa waddanka Soomaaliya. Balse waxaa iyaduna jirta shirkadaha iibiya saliidahan oo iyagu sheegay intaanay beerin dadku in ay sii iibsan doonaanba beeraha lagu beero geedkan. Haddaba geedkan ayaa noqday geed ganacsi wax soo saar ah yeelan kara, balse caafimaadkiisa marka laga sameeyo saliidda aan ilaa hadda wax shaybaar ah ama xog ah aan laga haynin dhinaca caafimaadka.